dooduna ma ah mid wax dumiso waana la sheekaystaa marka waxaan ku leeyahay cuqdada iska saar iska bixi saaxiib dhib ma jiriyo al-shabaab aadan wax ku tari karin dowladaadan wax ku tari karin anigana sidoo kale marka sheekada ha ku dheelin awoodan ku isticmaala iyo waa ku radan ku saara iyo waa ku tuurana saaxiib taas ilmaha xataa lama yiraahdo ala ay taxal intaas taasaan ugu gudbay tan labaad aniga haddii aan ka hadlay gobolka jowhar ee aan idhaahday muuse caraale maamul uma samayn ducaale adiga kuma haysa saaxiib ani al-shabaab ma rabo nin kasta ee ka mid ah ay harashaysanow agtida ka yah nin kasta ee qarannimada soomaaliyeed ka soo horjeedana ay iyo doofaro waa iga xaggeeyaa ducaale adaa iga dhigtay adaa i haystay haddaan ku idhaahdo saas maaha an ma igu soo jeesay oo ana maxaa iga rabtay an maa ku maagay adaa i maagay saaxiib adaa i maagay akhal casiis laakiin haddaad leedahay adigana aan ku sheego adigana ma hadli karta meg haddaad soo qabsatay radaan ku saaraa ducaale taas waa awood sheegasho waaye xaa iga rabtay adigu adoo xaad iga rabtay in magacaada la soo qaada haddaadan rabeen maxaa dadka magaciisa soo qaadee yaa ilaahay yaqaan ya calaa kulli xaal raalli ahaw meeshaadana fadhi dar allahina ku deg dhibaatana ma jirto magacaada haddaan sheegay haddaad kayga sheegtana wax maaragtay dhibaataa oo ku jira ma laha marka adigu kaad haddaad cuqda ka qabto way iska dhaafay faraha aan kala baxay sida al-shabaab iyo al-qaacida iyo xisbu shaydaan iyo jinni iyo doofaar ay u haystaan shabeellada dhexe ay u haystaan hiiraan saasoo kale u haystaan marka adiga haddii shabeellada dhexe la sheego ama hiiraan la sheego haw arki wax kale oo maaragtay miisaan culus inuu meesha yaallo calaa ayti xaal hadalka waxaan uga degaya aniga wallahi aniga qof aan cuqdad u qabo ama aan wax u geysan karo aaba iska yar oo aan jirin salaamullahi calaykum zeybin adeertay soo dhawow qof aan wax u geysan karo ayaanba jirinba qolkaana inta soomaaliya ay jirto waa jiri dooyaa waana joogi doonaa insha allahu tacaala hiiraan haddota su-aalaad i weydiisay ma ogtaha su-aalaad i weydiisay hiiraan online waxaad i tiri adigaba waa lagu haystaa ma ogtaha adigaba waa lagu haystaa waa runtaa nijaastu soomaaliya oo dhan ay haystaan in laga saarana waa waajib muqadas ah laakiin waxaan ku yidhi ricif yaraan ku dheerahoo rijaasha waa la raamsadaa oo qayb yara aniga ii bannaan dhul xoogaa ama aragta ii bannaan ma garata marka intaas yartaa aan ku dheerahay waa aniga hiiraan online wax noo dhexeeya marka calaa kulli xaal ha la iscafiyo calooshana ha la isu furo cadowtinimada iyo maxaa la yidhaahdaa dhibkana ha la iska daaya nin kastee soomaaliyana waxaan leeyahay dowladdaada u daacad noqo markaan idin leeyahay qofka dowladda taageersan dowladda dhaliisheeda ma sheegi kara macnaheedu waxay tahay haddii aad sheegta dhaliisha dowladda waxaa ka faa'iideysanayo kuwa mucaaradka kugu ah oo cadowgaadaa ka faa'iideysanayo xisbi kasta ee caalamka ka jirana xumaantiisa iyo samaantiisa waxay ku jirtaa asiga dhexdiisa laakiin iskama sheegi asiga kuwa kale ha ka sheegaan hadday rabaan marka ani al-shabaab inaan ka hadlo oo aan sheego xumaanta ay leeyihiin al-qaacida aan sheego maxaa la yidhaha xisbu shaydaan aan sheego xumaanta ay leeyihiin waaye in gacmaha dadka laga jaro waa xaaraan in maxaa la yidhahdaa diinta islaamka laga been abuurayo waa xaaraan qofka gacanta waxaa ka jari kara maamul islaami ah oo jira maxkamad cadaalad ah ayaa ka jari karta laakiin kama jari kariyo nin tuug asigaba ah guri islaameed degan guri islaameed ku aroosayo guri gabdho islaameed raba inuu xoog ku haysto diin islaam ma xukumi karo shaqana kuma laha waa ku kaalmaynaa hiiraan online isku kay haleyan ku yidhi dhinacaadana iga day durdur cafi saaxib dhinacaada iga day garabkaadaan ahay gaashaankaadaan ahay deriskaygaa tahay bal fiiri ah walaaltinimada soomaalinimada ka sukow derisaan banaa inteen kaaga hara asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo qabsada mayga dhammaantiina waa mahadsantihiin